banaanbax lagu taageerayay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Cadaado waxaana banaanbaxan ka qayb galayay kumanaan ka mid ah dadweynaha reer Galmudug ee ku sugan magaalada Cadaado sidoo kale waxaa banaanbaxa ka qayb galay xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug banaanbaxayaasha ayaa waxa ay wateen masawirada mas'uuliyiinta sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin halku-dhigyo lagu taageerayo dowladda federaalka waxaana halku-dhigyadaasi ka mid ahaa waxaan si buuxda u taageersanahay dowladda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiinta banaanbaxa ka qayb galay ayaa waxa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda dastuurka ee maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Colaad gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootoole wasiir dowlaha arrimaha gudaha Galmudug Cumar Guureeye iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkii hore ee Ximan iyo Xeeb mudane Cabdikuus sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug dadka reer Galmudug gaar ahaan reer Cadaado waa idin hambalyeynaya soo bixidiina dawladdiina Galmudug jecelidiina dadaalka badan oo muujiseen maamul goboleedyada maaragtay ka dhisan waddankay ka mid tahay waliba halbowlo u tahay dawladda dhaxayna la shaqaynaysa ayadayna leedahay kadib anaga Galmudug waa dawlad goboleedka bartamaha Soomaaliya ku yaal waa xuduntii Soomaaliya waxaanu soo dhaweynaynaa dawladnimada Soomaaliya iyo jiritaanka Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya ayaan soo dhaweynaynaa saacadana diyaar uma nihin kala qoqob iyo kala foqoq Soomaaliyeed iyo iska horkeen Soomaaliyeed iyo colaad cusub oo Soomaaliya hadda laga bilaabo diyaar uma nihin hadaan nahay shacabka iyo dawladda Galmudug midnimadeeda iyo arrimaheeda ka shaqaynaysa waxaana taageersanahay dawladda federaalka Galmudug dawladda ayay taageersan tahay ayada maaragtay sheegeen faareeda wadata saas darteed waxaanu leenahay hawlihiina qabsada Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado